kulanti wacan daawadayaal waa mar kale iyo janaalkeeni Molivan Janaal waxaynu maanta qaadan doonaa sida loo sameeyo roll up banner adigoo isticmaalaya Adobe Photoshop. Isku soo noqod wanaagsan haddii aad ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe ray gambaleelkana furo si aysan ku gafin cashar walba oo aan soo gelino. waxaad inoo soo furaysaa barnaamijkeena Photoshop. waxaan samaysan doonaa roll up size-kiisa. waxaan dooranaynaa engine width-ga waxaan ka dhigaynaa 31 halka height-ka aan ka dhigayno 82 resolution-ka 72 ayaa ku dhaafanaynaa. create inoo dheh. marka create inoo soo dhahdid waxaan soo dooranaynaa pen tool-ka kadib waxaan sawiraynaa laba shape. okay marka aad samaysid shape-ka labaad inoo tag right click ku dul leh waxaad ka dooranaysaa blending option si aan ugu darno xoogaa yar oo shadow oo qurux ku dhigaya. waxaan kasii dooranaynaa gradient overlay. okay ayaan leenahay. okay sida aragtaba shadow yar oo qurux badan ayuu inoogu daray. waxaan markaan select gareynaynaa labada shape. waxaan leenahay Ctrl G oo ah group. okay groupka asana waxaan ka sameynaynaa copy anagoo dhahayna Ctrl J oo ah duplicate. markaan copy ka samaysano Ctrl T ayaa dhahayna si aan u kala dhaqaajino labada shape. markaan waxaan rabaa inaan kala gediyo shape-ka waxaan dhahaynaa right click rotate 180 degree. hadda wuu kala wareegay. waxaan markaan soo qaadan doonaa rectangle kaasoo aan gelin doono sawirkeena. sawir inoo soo qaad inoo soo diraagelay Photoshop-ka inoogu soo dhaxtuur. okay Ctrl T resize inoo dheh size-ka inoo weynay. markuu fit inoogu noqdo waxaan dhahaynaa right click create clipping mask. sawirkeeni rectangle-ka ayuu dhexgalay. upper left side-ka waxaan u isticmaali doonaa logo. halka qaybta dhexe aan ku qoran doono headline-keena. waxaan qaybta dhexe gelin doonaa qoraalkeena. qaybtan hoosena waxaan u isticmaali doonaa contact us-ka. roll up-keeniina sidaas ayuu diyaar inoogu yahay. waxaan rajeynaa inaad fiidiyogan wax un aad ka faa'iiday ama idea aad ka heshay. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe ray gambaleelkana furo si aysan ku gafin cashiradan iyo cashiro ka xiiso badan oo soo socda.